Avalanche mid ka mid ah coinanka laga qadeeyay mid ka mid ah coinankii ugu wax soo saarka badnaa suuqa cryptocurrency mid ka mid ah coinanka bixinaya jaaniska ugu fiican 2026 coin soo jaray $160 haddana taagan $5 iyo bar ku soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeeni fursadaha coinska maanta waxaan dul istaagi doonaa Afakis ama Avalanche waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan Afakis iyo maaragtay fursadaha ka furan waxaan tagi doonaa screenka saaxiibayaal ila soco saaxiibayaal haddii aan isla tagno screenka coinka maanta meesha noo saaran waa Avalanche haddii aan fiirino market cap-ka waxaan u kala qaadaynaa saddex nooc large cap middle cap iyo low cap ayaan kala qaadaynaa haddii aan tagno marka coin market cap oo kale maxay noo sheegayaa coinkan waa coin noocee ah Avalanche wuxuu ku jiraa kaalinta 32 dadka hawaaga culus marka waxaan u jeednaa Avalanche inay ku jirto kaalinta 32 qiimo ahaan ay marayso $6.16 xilliga marka market cap-keedu waxa waaye 2.66 billion waay okay marka market cap-kan wuxuu iska noqonaa middle market cap ayuu noqonaa rankinka 32 ahaa market cap-kan wuxuu noqday middle market cap ayuu noqday haddii aan fiirino utility and use case shaqada coinkan uu qabanayo horta waa shaqo noocee ah sidoo kale hype miya mise waa xal taasna ina kala ogaanaa Afakis utility-ga haddii aan fiirino shaqada ugu weyn oo qabto waa token gas in lagu bixiyo khidmadaha kala duwan sidoo kale waxaa loo isticmaalaa governance oo ah in dadka validatorska ah ay saameyn ku yeeshaan maamulka iyo horumarinta blockchain-ka iyo in uu leeyahay waxa la yiraahdo subnets taasoo ah u ogolaanaysa shirkadaha waaweyn in ay maaragtay ecosystem-ka ama blockchain-ka Afakis ay ku dhex dhistaan ecosystem u gaar ah saddexdan qodob ayaa u weyn haddii aan fiirino use case-ka waxyaabaha u weyn maaragtay loo isticmaalo waxaa ugu muhiimsan waa real world asset RWA iyo enterprise solution oo ah in shirkadaha ay maaragtay runtii markii ay ku sameystaan subnetka oo kale in ay waxyaabaha problemyada ama dhibaatooyinka haysta inay iskaga xaliyaan haddii aan fiirino marka tokenomics-kiisa coinkan dhinaca maaragtay supply-ga haddaan fiirino inkastoo tokenomics-ku coinka sida loo kala haysto ay tahay haddana supply qaybta ugu muhiimsan waaye marka waxaan fiiri doonaa gudaha ayaan u gelaynaa haddaan ku dhufano Afakis Avalanche oo kale haddaan fiirino marka supply oo kale maximum supply-ga haddii aan soo dhaweeyo maximum supply waxaan u jeednaa inuu yahay 715 milyan inuu yahay sidoo kale inuu yahay dhinaca iyo totalka 463 circulating-ka inuu yahay 431 milyan marka runtii waa supply aad u yar waaye coinkan supply-giis aad buu yar yahay marka haddana dhinaca maximum-ka iyo totalkana maaragtay wax 200 milyan camal u dhaxeeya sidoo kale dhinaca iyo totalka iyo circulating-ka asagana waxa u dhaxeeya 2 milyan ah ayaa u dhaxeeya marka runtii holderskiisuna waa 161,000 oo qof marka profile score-kiisuna waa 79 marka supply-giisa aad buu fiican yahay runtii blockchain-kiisa coinkan waa layer 1 waaye layer 1 blockchain waaye marka waa coin mirihiisu aad u fiican waaye haddii aan fiirino dhinaca iyo coin history-ga haddii ay ahayd all time high-giisa all time low-giisa isagana aan fiirino haddii aan saarano all waxaan u jeednaa in coin ku soo galay $38 meelahaas ay ku sheegayaa haddaan fiirino meelaha u sari uu tagay 80 iyo xoogaa 94 buu sheegayaa marka si fiican baan waxaan uga fiiri doonaa dhinaca iyo trading view-ga haddii aan fiirino coin news-ka waxaa ka fiirinaysaa partnership-kiisa listing haddii lagu sameynayo maadaama coinkan coin weyn u yahay oo baahna listing coinanka cusub sanjada lagu soo listigareeyahayo ayaa u baahan listiga update ka soo baxaya waa muhiim
haddii aan fiirno community and hype coinkan bulshada ku xiran iyo sida u halhayaan waxaa ka fiirinaysaa X, Telegram iyo Discord activity ay kala socon kartaa. qodobka sagaalaad haddaan fiirno technical analysis-ka aan tagno trading view saaxiibayaal haddii aan fiirno dhinaca iyo technicalka waxaan u jeednaa coinka horta inuu daalasho xoogan ku jiro waliba laga soo bilaabo ilaa iyo September ilaa hadda daalasho ku jira oo runtii aad buu u daadanayaa. haddaan fiirno marka dhinaca iyo daily oo kale daalashada u dambeysay waxaan u jeednaa in uu taabtay taqriiban wax ku dhow 5.6 soo taabtay ayaan u jeednaa. marka coinkan runtii aad buu u daadanayay baryahan oo haddaan fiirno baatanka Paris flag ah ayaa sii daashay marka zoonkaana inuu maaragtay daadanayo hore ayaan maaragtay u sadaaliyay oo trendline-ka waa tala jabsaday. marka si guud haddii aan fiirino dhinaca iyo maaragtay zoneska ugu macquulsan ee suuqan laga celi karo zone 1ka ugu horeeya horta waa haddii uu ka soo dhaaqo areadan meesha ugu horeeya lagu celi karo waa zoonkan waaye zoonkan maaragtay ilaa iyo 15 oo kale waa lagu celi karaa. marka zoonka kale ugu xiga maaragtay waa zoonkan waaye oo isagana ilaa iyo 35 ah. zoonka kale ku sii xiga isagana waxaa waaye ilaa iyo maaragtay dhinacan 55 oo kale isagana waa zoon lagu celi karo. marka coinkan waa coin runtii mustaqbal leh maanta meel la soo joogaa qofkii ku jiro DCA sameeya ka bixin suuqa dhan ayaa daatay. marka caadiyan waxaan isleeyahay qofkii maanta gala oo $6 ka gala in uu maaragtay ka sameey karo dhaqaale fara badan oo runtii maaragtay tusaale ahaan dhaqaaq maaragtay haddaan fiirno si guud bal meelaha ugu badan laga celi karo haddaan fiirno coinka intee laga celi karaa it's very important. okay coinkan meelaha ugu badan laga taageeri karo haddii aan fiirino si guud hata zoonka hadda u macquulsan suuqa si guud coinka markaan fiirno waa zoonkan. marka haddii zoonkan uu dhaafo tusaale ahaan $5 iyo 2 senti oo kale duu dhaafo marka aad buu si daadanaa laakiin hadda meeshaan meel xoogan inay tahay ayaan u jeednaa. marka saaxiibayaal coinkan waa u jeedin meesha uu taagan yahay iyo maaragtay jaanisada uu bixi karo marka halaga faa'iideysto si guud zoneskaana waa meelaha ugu dhow laga celi karo haddii uu dhaqaaq dhinaca sare ama uptrend ah uu sameeyo taas waa inaa ogaataan. haddaan fiirno dhinaca iyo RSI-ga waxaan u jeednaa inuu way oversold uu yahay ayaan u jeednaa. sidoo kale markii u dambeysay oo dhaqaaq fiican RSI uu sameeyay 85 buu kasoo laabtay waa marka coinku uu gaarayo maaragtay ilaa iyo 50 iyo xoogaa. runtii coinkan waxyaabaha aadka ugu fiican ka mid ah dhinaca trading oo kale investment hada chance weyn ba ka furan ha laga faa'iideysto saaxiibayaal. mar walba oo coinku chance bixiyo waa in laga faa'iideystaa daadashada waa chance ha u arkin khasaare iyo dibdhac u arkin discount ayuu suuqa ku siiyay. haddaan kusoo laabano saaxiibayaal risk analysis-ka well-being evaluation-ka ayaa iska fiirinaysaa regulation risks-ka ayaa iska fiirinaysaa dhinaca psychological risk-ga muhiim waa isagana coinkan oo kale hadda u daatay qofka inuu kan xal lama rabo waa iska natural waaye suuqa dhammaan ayaa xaaladaas ku sugan taas waa inaa ogaataa. haddaan fiirino security-ga isagana waa muhiim arrimaha ammaanka waa ina aad iskaga fiirisaa wixii riska ka imaan karo dhan iskaga carar. qodobka 11 haddii aan fiirino waa talooyin muhiim ah in aadan raacraacin boonbooninta waxaan la boonbooninayo inaan raacraacin. sidoo kale inaad samaysay cilmi baaris ku gaar ah do your own research waa muhiim. sidoo kale inaad kala duudid portfolio-yadaada haddii aad haystid coinaan kala duwan iyadana waa muhiim. aad u mahadsantihiin saaxiibayaal muuqaalka like saar YouTube-ka subscribe saaro saaxiibadan la wadaag way noo kulantay dambe.